mar kale maanta waxaan u soo istaagay in aan shacabka Soomaaliyeed aan la socodsiiyo xaaladda dhabta ah ee dalka uu marayo ayadoo ay waajib igu tahay in mar walba xaaladda dalka uu marayo dadweynaha Soomaaliyeed inay ogaadaan xaqiiqadiisa iyo dhabtiisa. dalku wuxuu ka yimid meel aad iyo aad u fog, horumar aad iyo aad la taaban karana uu ku tallaabsaday, wax badanna waa ay ka dhiman yihiin. waxaa ka war helay dhowaan in xubno ka tirsan baarlamaanka ay keeneen yiraahdeen mooshin ayaan ka gudbinaynaa madaxweynaha. waxaan mar walba sidii aan hore u soo dhaweey jirnaba baarlamaanku iyo xildhibaanadu in ay gutaan waajibkooda dastuuriga ah sida waafaqsan dastuurka waa arrin soo dhaweyn mudan mar walba tixgelinteedana leh, aniguna aan aad iyo aad u weyneynayo. waajibkaas dastuuriga ah waxaa loo dejiyey in dadka Soomaaliyeed iyo masaalixdooda iyo wanaagooda iyo dawlad dhisidooda iyo duruufaha gaarka ay ku jiraan siday uga bixi lahaayeen, laakiin marna looma dhisin in uu carqalad noqdo ama caqabad noqdo. waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ogaadaan in tallaabooyinka qaarkood ee la qaadayo xilligan lagu jiro dhammaadkii muddadii dastuuriga ahayd ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay curyaaminayso ama curyaamin karto waxyaabo badan oo wanaag ah. hannaanka wada tashiga iyo baadigoobka heshiis ay hay-adaha dastuuriga ah iyo shacabku ka yeeshaan hannaanka looga gudbayo 2016 waxaa asal u ah kalsoonida iyo is-aaminaadda iyo wada tashiga shacabka Soomaaliyeed oo ay horkacayaan ama matalayaan hay-adihiisa dastuuriga ah. qabyatirka dastuurka oo hadda meel xasaasi ah marayo wuxuu u baahan yahay ilaalin iyo maareyn. taabagelinta federaaleynta dalka oo iyaduna meel gabagaba ah hadda maraysa waxay u baahan tahay ilaalmo iyo ka taxadiris. howlaha aan u idmanay guddiyada kala duwan ee sida dalkan dimuqraadi looga dhigi lahaa, federaal looga dhigi lahaa, amni iyo deganaanshiyo loogu heli lahaa, dhammaantood waxay u baahan yihiin in taxadir badan iyo mas-uuliyad dheeri ah la iska saaro.